السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada daawadayaal meel baad dunida fiidka joogtaan. Ninkii Idris Itaab dhahay horta waxaa ku dhacday masiibo qaran. Ilaahay ha u boogadayo. Ninkan sida ogeydeen maalin dhexdaas afar maalin ka hor waxaa lagu dumiyay gurigii uu ka deganaa magaalada Muqdisho. Waliba waxaa aragteen asagoo roobku ku da'ayo oo alaabtiisa guranayo oo TikTok-gaas ka qaylinayo. Intaas kadib Soomaalidii ninkan way u kacday. waxaa loo aruuriyey lacag 26,000 oo doolar ah waxaa lagu dhex aruuriyey live dhexdiisa. Ninkii markaas dhahna markaan waa u fadhiisatay alla ilahay yaa magaalada wuxuu ku taaganaa dabaq yar. Haddana isla 2 maalin kadib ninkii waxaa la dhahayaa xabada ku dhacday. Laakiin dad badan waxay u maleeyaan inaa xabad lagu dhufto laakiin xabad laguma dhufanin. Xaqiiqda anaa igu imaanaysaa. Ciidanka Nissan ee dowladda Soomaaliya oo Cabdi Bilo wadato asagoo mooto feekon saaran oo ka hor imaaday. Cabdi Bilo si wuxuu ugu dhacay oo kama ah kas laguma dhufan. Marka intaas kadib dadkii waxay leeyihiin ninkii madaxii uu ka jabay, labadii lugood uu ka burburay. Waxaas wax ka jira ma lahan. Ninka meeshaan sujuudda wax yar ka soo gaartay 2 qodob baa laga tolay. Sidoo kale labada lug oo ka jaban hal lug oo bidixda ah waxa uu ka jabaa lahay laakiin wiil lama qabin. Marka ninka hadda waxaa la joogo kabtan baara la joogo dad badan oo caan ah la joogo. Ninka hadda xaaladiisa way fiican tahay. ciidamadii ninkan dhibaatada u geeyay waxay sameeyeen meesha ugama tagin way qaadeen isbitaalkii ay geeyeen xitaa waxaa la dhahay daawada iyo qarashka ku baxay ninkan anaga ayaa bixinayna maasha Allah runtii waa ciidamo gob ah waa ciidamo u taagan difaaca iyo dalka iyo dadka iyo danta shacabka maasha Allah waxa idin leeyahay guuleysta marka warnimayahu masiibada waa iska dhacdaa intaan walaalkeena ha loo soo duceeyo ilaha u qori kulay isbuucan waxay u tahay isbuuc yani mugdi u tahay dareemi kartaa gurigan hadda dhow oo gatay waa dareemi kartaa YouTube waxa ka keenaa oo maleen arono laakiin gurigan hadda dhow oo gatay oo dhistay booska lacag uga baxay dhismaha lacag uga baxay saasay taan waa laga duumay alxamdulillah waxa la nimco walba nusxaanteeda wataa laakiin haddana ilaahay wuxuu siiyay lacag leeto oo 26,000 doolar guriga u dhistaa ninkaas haddana asiga maanta dhaawacay kulay tan waxaa dhihi karnaa waa yani masiibo rabbaani ah oo dhanka alla ka socoto walaalkeena qalbiga Allah wuxuu wajaa Allah caafimaad ha siiyo u soo duceeyo waxaa rabo barnaamijkaas in ay idinka dalbiyo wararka xaqiiqda ay ugu imaanaysiin muuqaalka la gareeyo janaalkana hala share gareeyo muuqaalkan iyo muuqaalo lamid ah inta kulmi doono waxaa idin leenahay fi amaanillah